sanad kasta gudaha dalka waxaa laga xusaa maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku beegan 15 May. 15 May waa maalin qaran oo dalka Soomaaliya laga xuso aasaaskii ururkii gobonimo doonka Israel kaasoo ahaa ururkii ugu horeeyay ee dalka laga hirgeliyo lana yimid halgan adag oo loo soo galay hanashada xorriyadda dadka iyo dalka. munaasabada xuskan lagu weyneynayay oo wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Koonfur Galbeed soo qaban qaabisay waxaa ka qayb galay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, wasiiro, xildhibaano, gudoomiyaasha gobolada, kuwa degmooyinka, ururada dhalinyarada, haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. kooxaha fanaaniinta ayaa sidoo kale qayb ka ahaa muxuska munaasabada 15 May. agaasimaha wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Koonfur Galbeed Maxamed Cusmaan Oore iyo qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa maalintan qiimaha badan hadallo ka jeediyay. waxaan tusaysaa awoodda ay leedahay ee daahsoon dhalinyarada aan la ogeyn ee maanta uu madaxweynaha soo muujiyay. haddii mar walba dhalinyarada fursadaas looga faa'iideysto in awoodooda la soo bandhigo, waxaan rajaynaynaa in wax badan ay iska bedelaan. dhammaan waa maasintinka soo qabankiina kaliya waxa ahaa inaan furfuro oo idinku soo dhaweeyo ujeedada dhalinyarada ee maanta xafladan u qabanaa idin sheego. mudane madaxweyne may ka hoosadaan in arintaasi walnay ku qabata tuman isiyeedka degmo Koonfur Galbeed dhalinyarada fariintaas ay dhiibeen geeka noo jaanis kun ka faa'iideyso mudane madaxweyne arintaas walnay ku qabay. odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed, madaxda gudoomiyaasha gobolada iyo kuwa degmooyinka oo maalintan ka hadlay ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la xoojiyo awoodda iyo midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed. geeka waliisan tusaase odayaasha da'adaha surma jaraan hortiin geeka waalan maalintii dhalinyarada waa in aan hortiin surma maalintii waa dhalinyarada maalintii waa maalinteeni golaha wasiirada mayl eraay mis xukuumadda Koonfur Galbeed barsantii 9 waa dhalinyarada mayl laha isin qabiil mihiidin isin mihiidin mayl eraay siyaasiin mihiidin isin deegaanka ma in ku shaqeeyasana wadaninimo in ku shaqeeysan dawladda la shaqeeysan mayl eraayis mayl shaqeeysan bulshada kale la shaqeeysan amniga ku shaqeeysan walaal inta lu ku hadalay dib u horaan way dib u horaanta walaal la dagaalan fado dhalinyaro una amal message inaan maanta idin reebo dhalinyaro waxaan idin leeyahay wadankiina qof kale u maqan ma lahan. haddaad sugaysaan qof kale inuu idin imaado oo dhulkiina iyo dalkiina idin dhiso qof aan idinka ahayn oo u jooga ma lahan. wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed Salmaan Shucayb Cali ayaa goobta ku xusay sida wasaaradda ay muhiimad isaga saarto dhalinyarada Koonfur Galbeed. sidoo kale run ahaantii maanta waa maalin qiimo weyn leh oo qof walba Soomaaliyeed oo si gaar ah u xusaayo maalin annaga oo nagu leh waay xasuus gaar ah 13 dhalinyarada oo run ahaantii u istaagtay in dalkan maanta meesha uu joogo ay soo gaarsiiyaan xorriyadan maanta ku damashadeeno ku noolahay. ilaahay ka sokow dhalinyaradii ka shaqeysay SYL ilaahay ha u naxariisto. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sheegay in xukuumaddiisa doorka ugu weyn ay siisay dhalinyarada Koonfur Galbeed. dhalinyarada reer Koonfur Galbeed waqti badan yaan gelinay, waa aragnay, waa baranay, waa la shaqeynay, fursado siyaasadeed la siiyay, fursado shaqaale la siiyay, fursado ciidan baa la siiyay. intaba runtii waxa la dhihi karaa intii dhalinyaro laga rabay waa ahaayeen. waxay u baahnaayeen dhiirigelin iyo dabagal iyo isla xisaabtan. Muxuddin Xusni, Universal TV, Baydhabo.